bismillah magacaygu waa deeq geesood waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adigoo ku dhashay muqdisho oo ka soo jeeda beesha jarar weyne halkan iyo Puntland iyo gobolladanba u soo wareegtay maxaa iska ka bedelo ku kordhay wax iska ka bedelo wali Saciid Cabdullaahi maxaa dareemaysaa mas'uuliyadda ay marjeeteen ku doorteen dabcan mas'uuliyad baan dareemayaa oo mas'uuliyadda ay fuushay laakiin mas'uuliyaddu macnaheedu maaha inay aniga i bedelayso hadii ilaahay laakiin mas'uuliyaddu dareenkeeda waa igu jiraa xoog leh maxaa kala cusub oo dadka u sheegaysaa maadaama Puntland aad u dhalan oo 91 aad imaatay maxaa kala cusub oo noo sheegi kartaa kuma cusbiyada Puntland waa dalkaygii waa dadkaygii waa dad aan aqaan waa dad aan qaybo kala duwan oo dadka bulshada ah ka soo dhex shaqeeyay waxa aan ugu tagi doono xafiiska marka laga reebo waxaan hadda dareemayo ugu cusub oo hadda muuqda bulshada iyo xogteeda iyo xaaladeeda oo aan dareemayo ma jirto waa meel aan si fiican u aqaano bulshada maadaama marjeeteen ku soo doorteen dawladda cinkaya laga filan karaa asleeda waa dhisi kartaa dawlad tayale maxaad ka wadaa bal noo jilci dad badan aan fahmin ba jireen dawladda tayale waxaan u jeedaa dawlad aqoon waayo aragnimo firfircoonaan dhalinyaranimo iyo daacadnimo lagu soo xulay baarlamaanka hadda hal gabar baa dhex fadhida adiga maxaa dumar ku soo dari doontaa dawladda soo xiri doontid waan rajaynayaa gabdhuhu inay ku yeelan doonaan number macquul oo ay ku qancaan anigoo deeqgeesooda maalintooda waxaa kaa diyaariyey documentary taariikhdaada ku saabsan baa kaa diyaariyey dad badan baa muran ka abuuray oo conflict waxa la yidhaahay dhalisay iyo isqabqabsi iyo inaysan ahayn waxaan kaa diyaariyey sax ma noo sheegi kartaa Saciid Deni madaxweynaha marjeeteen hadda isku doorteen yuu yahay caruur ma leedahay xaas ma leedahay intee sana jirta bal noo sheeg bal dabcan sida la wada og yahay oo taariikh nololeedkay wax ku qoran yihiin meelahaas aan ka wada hadlayo dhan labiyo konton jir baan ahay afar ciyaar iyo xaas leh waxaan ku dhashay oo ku soo barbaaray magaalada Muqdisho ilaa iyo marxaladii koowaad ee jaamacadda burburkii Soomaaliya kadib waxaan u soo wareegay goboladan intii aan joogana runtii waxaan wax la qaybsaday bulshada halka degan wax walba ay qabeen maanta iyagaan dhex joogaa waxaan rajaynayaa inta dhammaan meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah oo aan joogo inaan bulshada ku dhex noolaan doono nin jireer weynaa tahay oo ganacsada oo lacag leh lacagtaadii iyo hantidaada iyo hantida marjeeteen ma kala ilaalin doontaa isuma dhex jiraan hantideedu waa hanti caam ah oo la yaqaan oo shirkado la yaqaan ku jira dawladduna waa dawlad aan anigu u shaqeynayo ma aha meel hantideeda looga dhex shaqeynayo marka waxba iskuma khaldanaan doonaan haddana iskuma khaldana adigu qabiilka marjeeteen umada dhalan sidee wax u soo dhisi doontaa yaa la hadli doontaa yaa la sheekaysan doontaa xafiiska subbaan la wareegay waa inaan xog helaa inta aanan wixii iga horreeyay sida yihiin maantana madaxda wasaaradda waa la kulmay waxaan u baahanahay inaan ogaado meelaha xasaaska ah si aan ula jaan qaado isbeddelka maamul ee aan ku soo biiray 21 nin baa xilka kula dartay oo ka qaatay madaxtinimadii adigoo Puntland u dhalan oo marjeeteen ahayn maxay kula tahay inaan guusha ku heshay dabcan 20 qof 21 qof baan ku tartanay baarlamaanka Puntland waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo deganaanta ku jirto xilkasnimada ku jirto ee doorashada u sameeyeen 21 kaas waa dad walaalaheeya waa dad mas'uuliyiin ah waa dad xilal ka soo qabtay dawladda iyo dad aan xilal dawladeed soo qaban oo xilal ganacsi soo qabtay intaba dad waxa way u qalma inay maamulka qabtaan laakiin hadda meel lagu tartamay qof baa soo bixi lahayo anigu baa soo baxay madaxweyne social media meesha loo yaqaan Facebook aad baa laga hadal hayaa Facebook ma daawata oo social media ma gashaa maxaad adiga waqtigiis kaga dhumisaa banooni ma jecesha ciyaar ma daawata ma noo sheegi kartaa wax yar bal ma nooga taaban kartaa waxa aad jecesha adigu dabcan hiwaayadeedu kubadda cagta aan jirtay laakiin waa cuslaaday hadda ma ciyaari karo waxa inta ay dheer akhrinta buugaagta iyo la socodka meediyahana waxyaabaha aan u leeyahay way hadeertaan inaan macluumaadka caalamka socdo aan aad ula socdo waxyaabaha kaleeto hadee Soomaali waan ahayo sheekadana waa jeclahay madaxweyne adigu hadda qabiilka jarar weynaa ka soo jeedaa saasaan isku haysta laakiin dad badan waxay dhahaan uma ka Saciid ciyaaraha ma daawata sida Premier League Spain iyo Italian ciyaaraha ma daawata saakarka yaasa jecesha hadda soo iga dambeeyay waagi hore kuwa Talyaanigan
aad u daawan jiroon Napoli waan ahaan jiray laakiin hadda waayadan dambe kuwan dambe lama soco hadda ka hor adigoo musharax ah ayaa hadal waxaa ka jeedaysa magaalada Qardho waxaana dhahday Cabdiweli oo magaalada Qardho asagana soo galay adina ka sii baxaysay ba waxa dhahay madaxtooyada waxaan isku dawo mari doonaa sida hadda Cabdiweli isku dawo marayno Qardho masixirka awooyaasha waxa ka taqaanay jilib iyo jamaame ma noo sheegi kartaa adigoo oo dhaaranin wallahi caalam qayb ma ahay laakiin intentionally waxay ahayd waxaan ku jiray campaign sidaan jeclaa baan sheegay laakiin sida dhacday waa sidoo Ilaahay qadaray way ma noo sheegi kartaa sababta uga guulaysatay 19 nin oo marcheteen kula tartamayay iyo hal nin oo ku jiray dhakhtarkii dhulbaantaha adigoo nin jarar weynaa oo ka soo jeedo jilib iyo jamaame sababta ku guulaysatay maxay kula tahay ma noo sheegi kartaa waxa sababay adigoo u dhalan marcheteen inay ku doortaan ma noo sheegi kartaa sababtaas waxaan isdhihi lahaa waxay dhaxaad u ahaa dhalinyaro aad u fara badan oo tireless ah iyo dadkii meediyaha ka shaqeynayay ayaa campaignkiga saldhig u ahaa kuwaasaan guush xoogeeda iskale iskuulada ka bilowday 9-shanadii ardaydii dhiganaysay mislada waxbay ka caawiyeen iyo doorashadaada maadaama qabiil lagu soo dooran laakiinse lagu soo doortay oo ardaydaadi ku ololeysay iyo dadka wax soo bartay ma kula tahay inaad saas ku guulaysatay sababtuna ay noqotay absolutely waa ku faraxsanahay dhalinyaradaas dabcan aqoon bay lahaayeen dantooda inaan ka shaqeynayana tuhum bay ka qabaan runtiina waa dadka udub dhaxaadka u ahaa campaignkiga waan uga mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen guud ahaan gudo iyo dibadba dhalinyaro aan kala harin oo waqti badan geliyay oo waqti dheer soo bilaabay waliba marka guushan waa guushooda oran kara su'aasha u dambaysa haddaan ku weydiiyo marcheeteenka ma kala xigsanaysaa ma dad baa kuugu sokeeya sidee ugu dhaqin doontaa sidee wax ugu qaybin doontaa waxay iga qori doonaan inaan si daacadnimo leh oo karti leh oo hufnaan la aan ugu shaqeyn doono intaasaan u sheegay hadii la taas hadii dhicooda ma lagu ceyrin doono markaas go'aankooda gaari doono judgmentigu waa dhiman yahay hadda ma madaxweyne Dani aad baad u mahadsantahay thank you